Bismillahirrahmanirrahiim. Dawadayaal waxaad ku soo dhawaataan falanqayn gaar ah oo ku saabsan daraasaadka iska soo daba dhacaya ee ku saabsan dadka burburan. Daraasad cusub oo la sameeyay ayaa lagu soo gabagabeeyay in dadka cayilan ay mas'uul ka yihiin wasakhowga deegaanka marka ay sii daayaan hawo wasakhaysan. Waxa uu la mid yahay qiiqa ka baxa diyaaradaha qaaradaha iskaga kala gudba. Barayaasha daraasadda sameeyay ayaa sheegay in 600 milyan oo dadka cayilan ah in dheefshiidkooda uu kor u kaco, taasoo ka dhigan tahay inay sanadkii tuuraan hawo wasakhaysan oo ka badan qiica warshadaha dalka Sweden ee sanadiiba mar ay sii daayaan. Daraasadan ayaa timid kadib markii adduunka oo dhan ay ka cabanayaan hawada sii kululaanaysa, taasi oo saameyn weyn ku yeelatay dalalka qaarkood. Hawada sii kululaanaysa ayaa waxaa sababaya wasakhowga gaaraya ozonka hawada inta aan la gaarin qaybta sare. Tanina waxay ififaalo cad ka muujinaysaa in dadka burburan ay qayb ka yihiin wasakhowga adduunka ee sii kululaanaya. Taniya markii ay soo baxday daraasadani ayaa waxa ay dadka burburan ay ku tilmaamaysay inay wasakhowga qayb ka yihiin, ayaa waxa falcelino kala duwan ay sameynayeen dadka burburan. Daraasadan ayaa waxa soo saaray qolyo isxilqaamay oo iskood isku xilqaamay kuwaasi oo baritaan ku sameeyay wasakhowga dunida iyo dadka burburan sida ay u saameeyaan.